iyadoo ay maanta ku beegnayd maalintii saddexaad ee ololaha xisbiga kulmiye ayaa waxaa jidadka waaweyn ee magaalada Xariirad si aan horey loo arag isugu soo baxay kumanaan taageerayaal oo kamid ah xisbigaasi kulmiye waxaana isu soo baxaasi kala qayb galay dadweynaha reer Xariirad wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ahna gudoomiyaha guddiga ololaha doorashooyinka ee gobolka Salel gudoomiyaha degmada Xariirad maayirka degmada Saylac gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Salel xildhibaano aqoon-yahano iyo wax garad kale oo aad u tiro badan waxa kale oo xafladaasi iyaguna ka soo qayb galay kooxda fanka Djibouti ee loo yaqaano deegaan oo iyadoo halkaasi ka tumaysay dadweyne aad u tiro badan oo madashaas iyagu ka hadlay ayaa dhamaantood waxa ay isu raaceen taageerada ay la garab joogaan xisbigaasi kulmiye maalinta codbixinta waxaana yiraahdeen Soomaalidu waxay ku maamaadaa midho ku yaala midho geesaara looma daasho waxaan haysanaa xisbigii kulmiye oo ah xisbigii horumarka gobolka Salel Xariirad waa muraayadiisa muraayada laga daawado weey gobolka Salel muraayada laga daawado weey ee cid waliba ogtahay weey Musabbih Cabdi sida wada ogsoontiin ragga kale marka la barbar dhigo baalal buu dheeryahay kulmiyaha guulaysto guushaha helo idhihiina iyo aragtidiina kala fura maskaxyaasha garaadyaasha aqligiina xisaabiya ragani waxay doonayaan imika inaga soo horjeedi markuu daadku soo ragmado maaragtay qorcaraa uu sitaa gaadhigu inta kale roobku markuu daana gaadhiga hoostiisu dhigtaa marka inaka way nagu guurayaan bari ka maalin markuu xisbigu dhamaadana nin waliba darihiisa iyo aqalkiisa iyo uu yahay inaka ragani nooma maqna calooshooda iyo qalbigooda u maqayiin wadani waan iskaga soo baxo waan iska casilay waxaan ku casilay sheekh baan ka waayay aqal baan ka waayay odayaal baan waayay waxa kale oo iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay maayirada Xariirad iyo Saylac gudoomiyaha gobolka Salel ee xisbiga kulmiye wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dadkii ay hore u soo doorateen haddii ay yihiin labadii xildhibaan ee golaha deegaanka iyo mid golo dhexe ku jirayba weli midkoodna mudac uma daabin degmada Xariirad markhaati baa iga tihiin mid ka mida haddii la helo raggaas mid ka mida oo hal qof oo shaqaalaha ama golaha deegaanka qoray ama dawladda dhexe ka qoray aad iga markhaati tihiin haddii la helo anigaa been sheegaya waa xisbi fahmaya xaaladda ka jirta dadkan iyo deegaankeenna ba fahmaya weeyaan nimanka sharax Musabbih Cabdi iyo Cabdiraxmaan waa niman garanaya dadkan iyo deegaanka ma garanaya weeyaan laakiin kuwa kale ma garanayaan runtii kuwa deegaanka ragga maanta u ololeynaya wadani keema oran kara qaar baa ka mid oon ognahay oo annaka intay noo yimid Hargeysa joogayaan mishaarka noogu soo diray ma Hargeysa loo doortay xagee loo doortay degmada Saylac Soomaaliya xagee laga doortay dad walaalo aan nahay waxay noo dhaxeeya waa tartankuna odaygii wuxuu yidhi maahay amba murti aan ka haynaa oo reeraheenii wuxuu yidhi raganima todhaad ma leh ninkii taabi karayo dadku markay eegaan dadka tartamaya cidda danta oon bay raacaan waxaan arkayaa reer Xariirad oo inaad isku raacdeen inaad xisbiga kulmiye doorataan magaalada Habaas oo taageerayaal aad u tiro badan oo xisbiga kulmiye ka tirsani ay maanta isugu soo baxeen halkaasi oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ahna gudoomiyaha guddiga ololaha ee gobolka Salel ee xisbiga kulmiye Xaaji Nuur Cismaan Guuleed uu kala hadlay dadweynahaasi sidoo kalena isu soo baxkan oo kale la mid ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Cabdulqaadir halkaasi
dadweynuhu aad isugu soo baxeen isla markaana uu kala qayb galay isu soo baxaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka mudane nuur cismaan guuleed. maxamed cawaale daahir, Hon Cable TV, magaalada Xariirad.